Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Halkan waxaan ka bilaabaynaa barashada Camtasia Studio oo ka mid ah software-ada lagu duubo muraayadaha screen recorder-ka loo yaqaano ee casharada lagu sameeyo sida kan aan hadda ku sameeyay laftigiisa weeyaan. Okay, markaad ila fahanto inuu yahay screen recorder waxaad u baahan tahay qaabkan u soo furto waa kan Camtasia waan ku duubtay laakiin qaabka loogu duubayo waa qaabka application softwareska loogu duubo ee aan qaacidooyinka kaasi aan ku bixiyay buugga operating system and application softwares marka hal mar baad riixaysaa marka hal mar riixdo warqadana ku soo baxaysa warqadan marka ku soo baxdo ayaa waxaynu sharxi doonaa file waxa ku guda jira file marka rabto waa marka project cusub furanayso new page bay la mid tahay oo halkii aad ku baratay word laakiin halkan waa barka project cusub aad furanayso ee hadda new hadda raado new hadda de kanbooba newba ka laftigiisaba newba waa marka open waxa weeyaan projectan hore u samaystay isoo fur weeyaan waa marka aad ku save gareyso Camtasia ahaan laakiin marka AV video aad ku save gareyso maaha open ma noqonayo halkaas wax kala xusid mudan recently waa kii hadda markaad ka ugu dambeeyay duubtay ama programka projectka ugu dambeeyay ku samaysay Camtasia laga soo furtaa save as project baa leedahay save as project marka tiraahdo baad iyad open project ku shaqeyn karaa oo keeni karta halkan soo keeni karta sidii wordkii aan ku baranay open oo save as project waxa weeyaan goobo kala duwan dhig sida aan ku baranay wordkii save as oo kale export project as sib ahaan igu keeno kale producer share ba muhiim ah taqaan producer share baad click siinaysaa hadda waxbaan oolin software mid aynu sameynaan oolin hadda laakiin markaan uu ku soo noqonayna import gaas ku soo boodin import waxa weeyaan video aan ahayn mid ku save gareysan qaab Camtasia oo kale ayaad keeni kartaa hadda import immediate hadda tijaabina waa kan u baahanahay preview gan oo kale soo saari karnaa preview gan oo kale hal mar baad click siinaysaa open baad leedahay open marka saata wuxuu ku error no code kan mid jira maaha inoogu noqo waa faa'iido bay ku tahay mar kasta wax lagu noqdo marka casharadeedan soo saaro waa kan multimedia gal ani video converter kan gal casharkan soo qaado casharkan habka loogu duubo ku duubay ayaad hal mar soo riixaysaa marka doonayso inaad keento halkan aad waxna ku bedesho ayaad hal mar halkan keenaysa ujeedadeenu wali meelaan gaarin sidaad ugu sameyn lahayd nashqadeyn ka badan intuu yahay laakiin halkan u bad keensanaysaa hadda markuu halkan inoo keeno ayay noo shaqeynaysaa product and share warqadan uu soo dhigaya markaad halka keento waxaad leedahay width ku kale bal waa inta height ku waa inta muraayada marka okay wala saasad okay kale waa size ku wanaagsan hadda ay shaqeynaysaa produce and share okay si marka qaabka waxa la isticmaalaa markaad rabto inaad ku save gareyso video-ga website ahaan oo kale oo ah mbeg video mp4 movie waxa weeyaan ayaad web ku save gareysaa iPod ku save gareysaa iPhone HD Camtasia ku save gareyn kartaa marka CD baad ayaa ugu wanaagsan CD-ga waxa la isticmaalaa CD-gu faylasha waa AFI movie file waa ku caadi computerka VLC gu furo kale hadii DVD lagu dhaana waa maxay waa isna noocaas kale laakiin halka waxaad fahamtay qaababka hatta share to YouTube baad ka dhigi kartaa okay marka waad fahamtay marka saas sameeyay hadda okay baad siinaysaa wuxuu ku leeyahay magac u bixi production name baad oran kartaa halkan waxa weeyaan mar walba halka aragto waxa la browser goobta la dhigo halkeen dhigaa ku leeyahay goobta doonta dhigan kartaa dad flash haysto flash ku ridan kartaa save as step nooca loo save gareynayo maxay waa AVE files oo ku VLC ku furo laakiin aanay furin media player ku waa inaad kala fahantaa markaas save leedahay kadib uu sameeyaa time badan random buu sameeyaa and finish baad leedahay marka waxaan ku tusayaa qaabka sameeyo random buu sameeyaa uu bedelayaa project marka inaga close kare wuxuu ku leeyahay inaga saar marka yes naga saar okay cancel si waxaad ila fahantaa hadda file baad ila fahantaa waxa ku jira import media
tanna waa recent recording waa kan hadda sameynay kii aan hadda duubnay ku sheegay kii ugu dambeeyay duubto ku saxaya kana waa import ahaan projectigo sibid loogu laga dhigo kala kan ka weeyaan marka tan waa ka bax weeyaan exit 10 keena koobaad halkaas in ku joojinaa